kolkii ciise ogaaday inay farrisiintu maqleen inuu yeelanayay oo baabtiisayay xer ka badan intii yooxana inkastoo ciise qudhiisu uusan baabtiisin laakiin xertiisu way baabtiisayeen ayuu yuhuudiya ka tegey wuxuuna mar kale u kacay galiili oo wuxuu lahaa inuu samaariya dhex maro haddaba wuxuu yimid magaalada samariya oo suqar la odhan jiray oo ku dhowey dalkii yacquub siiyey wiilkiisii yuusuf waxaana meeshaas jiray ceelkii yacquub haddaba ciise oo socdaal ku soo daalay wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa saacaddiina waxay ku qiyaasnayd 6 markaasaa waxaa timid naag reer samariya ah inay biyo dhaansato markaasaa ciise wuxuu ku yidhi iyada ii waraabi maxaa yeelay xertiisii magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan naagtii reer samariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga sidee baad adigoo yahuud ah biyo ii weyddiisanaysaa anigoo naag reer samariya ah waayo dan iskuma leh yuhuudda iyo reer samariya ciise waa uu jawaabay oo ku yidhi iyada haddaad garanaysid hadiyaddii ilaah iyo kuu yahay kan kuu leh ii waraabi adigu waad weyddiisan lahayd isaga oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool naagtii waxay ku tidhi sayidow waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid ceelkuna wuu dheer yahay haddaba xagee baad ka helaysaa biyaha nool miyaad ka weyn tahay awoowahaygii yacquub oo ceelkana siiyey oo isaga qudhiisu ka cabay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada kii kasta oo biyahan ka cabbaa mar kale wuu haraadi doonaa laakiin ku alle kii ka cabba biyahan siin doono weligiis ma haraadi doono laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan ilbiyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah naagtii waxay ku tidhi sayidow biyahan isii inaanan haddana haraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado markaasaa ciise wuxuu ku yidhi tag oo ninkaaga u soo yeedh oo halkan kaalay naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi nin ma lihi ciise wuxuu ku yidhi run baad ku hadashay nin ma lihi waayo 5 nin baad lahayd kan aad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha taas run baad ku sheegtay naagtii waxay ku tidhi sayidow waan gartay inaad nebi tahay awoowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen idinkuse waxaad tidhaahdaan yerusalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo markaasaa ciise wuxuu ku yidhi naag yahay ii rumee saacaddu waa imanaysaa markii aydan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama yeruusaalem midnaba idinku waxaad caabudaan waxaydnaan aqoon annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu maqaan waayo badbaadintu waxay ka timaadaa yuhuudda laakiin saacaddii baa imaanaysa waana joogtaa iminkaba markii caabudayaasha runta ihi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale ilaah waa ruux kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta naagtii waxay ku tidhi waan ogahay masiixu inuu imaanayo kan kristos la yidhaahdo oo markuu yimaado wax walba ayuu noo sheegi doonaa markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigoo kula hadlaya ayaa isaga isla markii waxaa timid xertiisii wayna la yaabeen markay arkeen inuu naag la hadlayo weliba ninna ma odhan maxaad doonaysaa amase maxaad ula hadlaysaa iyada sidaa aawadeed naagtii ayaa ashuunkeedii ka tagtay oo magaaladay u baxday oo waxay ku tidhi dadkii kaalaya oo arka ninkii ii sheegay wax walba oo aan sameeyey miyaanu kani ahayn masiixa markaasay magaaladii
ka soo baxeen wayna u imaanayeen isagii markaasay xertiisii baryeen iyagoo leh macallimow wax cun laakiin wuxuu iyagii ku yidhi anigu waxaan haystaa cunto aan cuno oo aynaan ogeyn. haddaba xertiisii waxay isku yidhaahdeen ma loo keenay wuxuu cuno. ciise wuxuu ku yidhi cuntadaydu waa inaan sameeyo doonistii kii isoo diray oo aan shuqulkiisa dhammeeyo. miyaadnaan odhanin waxaa weli haray 4 bilood oo markaas ayaa beerta la goynayaa? bal eega waxaan idin leeyahay indhihiinna kor u qaada oo daaya beeraha inay u cad yihiin beegoyska. kii gooyaa mushaharuu helaa wuxuuna midho u uruuriyaa nolosha weligeed ah inay kii beeraa iyo kii gooyaaba isla farxaan. hadalku waa furunkan mid baa beera mid kalena waa gooyaa. waxaan idin diray inaad goysaan wixii aydnaan ku hawshoon. kuwa kale baa hawshooday hawshoodiina waa gashaan. waxaa magaaladaas ka rumaystay isaga dad badan oo reer samariya ah hadalkii laagta aawadiis markay marag furtay oo tidhi wuxuu ii sheegay wax walba oo aan sameeyey. sidaa darteed markii dadka reer samariya ah u yimaadeen isaga way baryeen inuu la joogo. wuxuuna halkaas joogay 2 maalmood markaasaa kuwo kale oo badanay rumaysteen hadalkiisii aawadiis.